Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada taariikhda dalalka Islaamka. Maanta waxaan ku falanqeyn doonaa dalka Chechnya ama Shiishaan. Waxa uu dhacaa dhulweynaha la isku yiraahdo Qafqaas, waana dhul buuraley ah, taasoo keeni karta in aan si fudud lagu dhex mari karin buurahaas. Waxaa lagu qiyaasaa 200 kiiloomitir square oo wuxuuna gaarayaa Badda Madow. Buuraha ayaa ah buura ugu waaweyn dhanka Yurub markii loo eego dhirirka. Buuraha waxaa lagu qiyaasaa 5630 mitir. Waxaa xoog ku qabsaday dalkaasi Ruushka oo deris la ah sanadku markuu ahaa 1705, iyadoo xoog lagaga saaray sanadku markuu ahaa 1711. Muslimiinta ku nool Bashkiria ayaa ka saaray Ruushka. Dhulweynaha Qafqaas, diinta soo gaartay khilaafadii Cumar bin Khattab radiyallahu canhu, waxaa ku nool in ka badan 10 milyan oo qof. 90% waa muslimiinta dalkaasi. Dadka Qafqaasiyiinta waa dad ku faana diintooda Islaamka. Guud ahaan intaas ayaan kusoo afeerinaa taariikhda dalalka Islaamka qaybtii 8aad. Maanta aan ku falanqeynayna dalka Chechnya ama Shiishaan loo yaqaano. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.